waxaan anigoo ka xun halkan ka soo jeedinayaa murugta aan ka murugaysanahay waxa ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya oo colaadihii waddankeena halakeeyay oo wali aan laga raysanin 30 sano ka bacdi in qabiil isu laynayo dad gacala oo ehel ah oo is dhalay oo wiil iyo abti ah wiil iyo seedi ah nin iyo seedi ah nin iyo sodog ah la isku laynayo wax mithqaal daratin ah oo runtii ceeb ku ah cunsurka Soomaaliyeed waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalaha ku dagaalamaya meesha la yiraahdo Sangajabiye iyo Saaxmaygaag in xarbada meesha ka socota ay joojiyaan ilaahayna ka cabsadaan subhanahu wa ta'ala dhiiga xurmada leh ee walaalahood isuma banaana nabiga sallallahu wasallam alayhi waxa uu leeyahay inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada dhiigagiina sharafkiina maalkiina waa idin kala xaraam ninka kale intaas uga banaana sida ay xurmo u leedahay Makka oo Dhulxijja ay xurmo u leedahay maalinka yawmul Arafa ay xurmo u leedahay baanay xurmo u lahayn qofka muslimka dhiigiisu waa ka qiimo badan yahay kacbada la dumiyo marka in loo laayo ama loo dilo ama reerdan loo qixiyo min ajli reebel baa ilaahay ka dhigay ama tuuladan bay dhisanayaan annaguna tuuladan baan leenahay iyo waxa weeye tuulada ma dhisi karaan iyo annagu waa dhisi karnaa arrimahaas runtii waa foolxumo iyo fadaaxa taariikhda galaysa weeye nabigu wuxuu leeyahay sallallahu wasallam alayhi la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd gadaashay ha u laabanina gaalnimo qaarkiin qaarka kale ay qoorta ka jarayaan waayo dagaalka noocaas ee fidnada ah ee kugu dhimay iyo ka dhimay iyo waxa weeye kugu dun iyo ka dun iyo dhulka kula go'ah ninna guul kama qaado dagaal sokeeye malahan hal yey malahan hal game nin lagu faaro bari intuu soo fariista garaada ka tosha ma jiro haddii cid ay garaada ka tolanayso qabqablayaashina soo maray ee adduunka kharibay baa garaada lagu siin lahaa kuwaasa sharaf ku mutaysan lahaa kuwaasa bilada ku heli lahaa biladana ku heli mahayaan lacnada taariikhda ku socotay limaada dadkan soo qaxiyay عليه من الله ما يستحقون إلهي سبحانه وتعالى وحي كم مذيين هكو أبال مريو وإلهي سبحانه وتعالى الصومالها وأرجدو كوا ما أنت كشقينا هينا إلهي كقبت سبحانه وتعالى ما ملضة ضد كم مجعوضة كشقية وضد كم مجعوضة حلال كل وجودي بي وكشقينا يوحي أن لا درين حلبا كسارن ضد كدي جودة ضد كأمن جودة ضد كحسلوني ديسة سياسة دوري هجاك سناته حلبا كسارن حلكاس الله نوا كلا حسابتهم هيا أننا مرخاتي بين أنهاي ما أنت لفتنا ولا جود حسابتهم هيا صح معها أنت اللي جاب حلكي مسؤولية دي إن وحويه حد بلغ شيء كيو ما أنا نهين ماشي إيش قدو تيلي صح معها ضلك يو بربرة يو بابا يو إن لو تناقود السياسة أن لقى جول جارين صح معها إن رسكو مشغول سنادو أيضا ضدك قاركودنا إيجاجوجو أيان قارنا إعراض وقحيان قاركودنا أمن الدرائي دبدو وجوجان قارنا وحوي إيشك ضيع ظروف بسارد يكون نوريهين حلو بهاي عقل إنه شقيه أليس منكم رجل رشيد وإنه وحسكوف على يميانه كجرين وحودنك كقل دمي ما وحكلا سياسة دي خربان تيبا ولي تاني هاد اللي رئيس الله هي عدة سياسة داس قلد يسان السياسي بوها ما أنت وحكا قلديهن وسياسي وحلكي سيقبينا وسياسي haddii la damcayn wax la hagaajiyo midka caroonayo gafuurka taagayana waa siyaasi oo wax lagu doortay iyo mas'uuliyadda iyo amaanadu sida ma aha amaanada iyo siyaasaddu waa waxaad u soo oroday oo dadkaas xaaladooda nololeed inaad wax ka bedesho wax u soo kordhiso ugu yaraan aad kala badbaadiso oo la isleeynayd in dadka la isku fiirsado marna sax ma aha in looga darana sax ma aha inay xilkooda gutaan baa loo baahan yahay xilka hadaysan gudan karaynin waxa u taala inay xilka ku soo celiyaan ummadii iska lahayd waayo sax maaha ummadda waqtigeeda in loo lumiyo afar sano iyo shan sano Soomaalida waxa haysata aafa culku gal oo tuugo ku ciidmisay noocaas oo kale inay noqdaan siyaasiyiintu ma aha dalkan in loo naxo baa loo baahan yahay dadka culimada ah dadka waxgaradka ah dadka aqoon-yahanka ah dadka isimada ah ayaguna xilba saaran xilka saaran waxa uu yahay howlahan markay taagan yihiin waxa laga yaabaa inay ka badan yihiin gacanta dawlad iyo maamul in la isugu tago la isu kaashado waa ilaahay waxa uu leeyahay وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
isu kaashada biriga iyo samafarka colaytanka iyo dembigana yaan la isu kaashanin marka colaada in la debiyo fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum ilaahay ka baqa dhexdiina waxa ahaadana islaaxiya ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala in marka arrimaha noocaasa talaabo degdeg laga qaado oo loo wada gurmado oo waxa weeye qofkii biyo ku damin karo iyo qofkii alla bari ku damin karo iyo qofkii waxa weeye islaaxin iyo dhaxdhaxaadin ku damin karo aan loo kala harin baa loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dalkeena iyo dadkeena inuu islaaxiyo